Radio Muqdisho wuxuu xilligii dawladda militariga ka soo qaatay door firfircoon ololayaashii dalka ka qabsoomay sida ololihii abaartii dabadheer iyo dib u dejinteedii ololihii bacad celinta ee Shalambood ololihii horumarinta reer miyiga ololihii afka Carabiga ka baro raadiyaha afka Soomaaliga ka baro raadiyaha iyo ciyaarihii gobolada iyo kuwa kale waana kaalin weyn oo lagu amaano dhammaan howlwadeennada Radio Muqdisho ee xilligaas olala kasta oo la qabanayo olala kasta oo la qabanayo ama caafimaad haado ama waxbarasho haado ama nadaafad haado ama bacad celinti waxa dhan waxa loo adeegsanayo kulli oo meel kasta gaarigooda oo gaashaaman oo heesii wadaniga ayaa tuhayo meel kasta taagnaa asa u horeeyay haddii uu soo dadka ka cinayaba dadka ka cin kartaa ma jirto kan baleelka dhan waa wiiska dhan oo dadka cinaa asagu ahaa casharkeenan maanta waxaanu ku soo qaadaynaa warqad qoraal dhowr siyaabood ayaa warqadaha loo qoraa waxa ka mid ah xaashida saaxiibka aad u qorayso iyo xaashi aad xafiis u qorayso halkan maanta waxaan ku soo qaadanaynaa xaashi aad u qorayso ama sida xaashiha loogu qoro xafiisyada kaba soo qaad xafiis aad shaqo ka codsanayso xaashida codsashada waxay u baahan tahay hadal gaaban oo hufan lana garan karo fiiro gaar ah ayaa la siiyaa habka ay xaashidu u qoran tahay iyadoo la eegayo dhismaha weeraha xarfaha iyo higaada ereyadaba warqadda dhismaheedu waa inuu yahay mid la xiriira ujeedada qofka ama ujeedada aad ka leedahay inaad xafiiska isaga ah ka dhaadhiciso ee aanay dhinac kale u baydhin dhinaca kalena waxaa si isdaba jooga u socday kordhinta iyo tayeenta warfidyaanada iyadoo sanad kasta ay qaadan jirtay idaacadda warfidyaano cusub oo tababaro soo qaatay si dardar iyo dhiig cusub oo firfircoon loogu biirin lahaa shaqaalaha Radio Muqdisho barnaamijkaas ninka dadka jeediya waa niman mataqaana loo xulay marka hore ya ama codkooda dadka afka laga qaadi ma ka hadlo marka hore tijaabo hatta la qaato mataqaana dadka hata aniga codana laga soo qaaday marka intii mataqaana codkooda fiicnaaday ayaa idaacadu qaadatay si fiican meelaha kale wasaaradda farsamada meelaha kale la geen karaa wargeysada la geen karaa soona la geen karaa waxaan cod ku saabsaneen laakiin qofka oo idaacad makroofka hadlaayo hata xiriiriba ahaday codal waa inuu cod maraa Cabdulqaadir Geedi Rooble iyo Cabdullaahi Muxudiin Codka waa suxufiyiin ku soo biiray Radio Muqdisho dabayaaqadii 1980yadii waxayna ka sheekaynayaan xilligaas ay shaqada ku soo biireen iyo sida ay hawshu ahayd
raadiyo muqdisho waxaan ku soo biiray dhammaadkii 80aadkii 1987 waqtigaasoo aan bilaabay raadiyo muqdisho marka dad badan oo macallimiin noo ahaa annaga waa inaga horreeyeen oo way raadiyo muqdisho marka wuxuu ahaa raadiyaha keliya magaalada muqdisho laga dhegaysto marka dad badan oo wariyaal ah oo macallimiin noo ah ayaa waqtigaas horta aan nasiib u helnay inaan la kulanno oo aan ka faa'iidaysano anigu waxaan imid meeshaan 1988 bishii maarso 19keedii ayaa warqadaydii ugu horreysay ee agaasimaha xilligaa waaxda idaacadaha ahaa khayr allaha siiyo oo hadda ku nool dalka ingiriiska ayaan ku ogaa maxamed aadan xirsi teera ayuu ahaa agaasimahaygii markaas joogay warqadaydii ogolaanshaha in layga soo qaado cod tijaabo ah ma ahayn sida hadda wax loo qaataa looma qaadi jirin qofka cod tijaabo ayaa laga qaadi jiray korneyl abshir xaashi waa sarkaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed wuxuuna ka mid yahay shakhsiyaadkii Soomaaliyeed ee badbaadiyay kaydka raadiyo muqdisho waxa uu ka sheekeynayaa hantidan iyo muhiimadeeda waa meesha kaliya oo badbaadi oo hanti qaran ah Soomaali magaceeda la yiraahdo waa halkan burburka waayo waxa la tiraacayaa wixii la soo maray ayaa laga sheekeynayaa wixii madaxaheedu waxay soo martay sharci khayr ahayd oo ka sheekeynayaan wixii dagaal la soo maraa laga sheekeynayaa xornimadii iyo gobonnimadoonkii iyo waqtigeedii waa laga sheekeynayaa cajaro walba waxa ku kaydsan wax muhiim ah oo waqtigan dadka hadda jiray iyo kuwa dambaba ay ka faa'iideysan karaan sayid ra'iis anigoo hore kuugu mahadnaqay kalsoonida aad igu yeelatay iyo xilka weyn ee aad igu shariftay aad Soomaali iigu dhiibtay hore ama kaaga mahadnaqay haddana waxaan damcay inaan kaaga mahadnaqo muddadii toddobaadka ahayd ee imika ina soo dhaaftay ee aan raayil caamka xuuraanayay khibradaadii dheerayd siyaasadda u lahayd ee aad talo iyo garabba iga siisay waxay ila tahay oo aan hubaa haddii aanay taladaadii iyo sidaad gacanta ii qabatay aan ahayn daad siyaasi inuu wiigani qaadi lahaa taariikhda mardani heesaha suugaanta taariikhda iyo waxay hore mardani oo taariikhka ahaay oo mardani oo mardani ahaayeen yani waxay mardani diiwaan gelinay marka mardani waxa ka shaqeyn kara kaliya waxa weeyaan qof oo maskaxad leh oo mardani oo kala garan karo wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ayaa xilligii kacaanka lagu tilmaami jiray inay ka mid ahayd wasaaradihii uu ugu jeclaa allaha u naxariistay madaxweynihii kacaanka jaalla maxamed siyaad barre wuxuuna u arkayay howlwadeennada wasaaradda inay yihiin kuwa maamula dalka sida uu sharaxayo mar kale maxamed isaaq mursal horta xilligaas wasaaradoo dhanba waxay ahaydba wasaaradda oo ugu jecel yahaba heer wuxuu gaaray inuu yidhaa haddii qof warfaafina irid madaxtooyada waa la toosin karaa laakiin cid kale ima toosin karo markii la weydiiyey dalka dhan nimanka ayaga waa burburkii dalka ka dhacay ee 1991 ka sokow wixii ka dhacay Soomaaliya ee la xiriiray colaado sokeeyo waxa wehliye boob iyo burbur xoog leh oo loo geystay xarumihii hay'adaha qaranka ee ku yeelay caasimadda iyo gobolada dalka qaarkood waxaase uu raadiyo muqdisho ka mid noqday hay'adaha kooban oo intooda badan ay u badbaadeen dhismo iyo agab wixii ay dawladii dhacday uga tagtay kadib markii muwaadiniin Soomaaliyeed ay dhabarka u xirteen badbaadinta taariikhda dhaxalka ah ee ku kaydsanayd raadiyo muqdisho gaar ahaan kaydkii raadiyowga oo in ka badan nus qarni lagu ururinayay suugaan isugu jirtay gabayo heeso ciyaar dhaqameed khudbado taariikhi ah iyo agabyo kale oo muhiim u ahaa sooyaalka Soomaalida kuwaas oo xurnimadii ka hor iyo kadib lagu kaydiyay halkan markii hadda burburkii dawladda ku timid meeshan waxa soo gaaray dib badan baa soo gaaray ay ka mid tahay iyadoo la duqeeyay oo diyaaradihii UNISOM ay duqeeyeen kulayl gaaray cajaraduna waa kala tagay fiican yihiin kuwa waxaa jira haddii biyo iyo kulayl iyo qabow arkaan aan isbedelayn iyo kuwa waxaa jira haddayba iyaro kulayl dareemaan sidii xaashi gubatay oo kale noqonaya marka labadii noocba way noqdeen
هدمينا هدي هول قرني سعن هدي هو يدي مقصود تهي هدي هول قرني سعن هدي هو يدي مقصود تهي هدا إلك مغنى أبوانا دسوهري هدا هليلا إربان هرو لو علانا يا هدا إلك مغنى أبوانا دسوهري هدا هليلا إربان هرو لو